madarasada Macad Binu Jabal oo ku taala magaalada Gaarisa ayaa waxaa lagu qabtay xalfad sanad dugsiyeed waxaana maamulka madarasada ay ka cawdeen in aysan jirin cid si joogto ah u garab taagan. xalfadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Gaarisa, madaxa wasaaradda deegaanka, tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah, agaasimaha arrimaha diinta Gaarisa, waalidiinta iyo ubadku waxooga bartaan markaskan iyo marti sharaf kale. gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Gaarisa ahna xildhibaanka laga soo doorto xaafadda Waaberi ayaa tilmaamay dhibaatooyinka ka jira xaruntan waxbarasho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي محمد عباس بولالة واحد لقى صوت دورته وبري وود. أنا هاي قدامي كحجين كقولها برلمان كجارس وحنقولني مد إن معناها كسوق قبلنا حفلة دان مدرسة معاد بن الجبل ما أنت معرفة أرضية كقرن جبنيسو ما عرفت إن لو يري إن عسوم إن لو عسومي إن معناها كقرب قلنا مدرسة دان أو ما أنت الحرايو مدرسوين كعكمتها جارس كيلا عقبض فوين اللي هذا دولا يرابط معلمينتي ما هيستان ما أرتاح قالة أو جوكتا أو قصة صعدة معلمينتي مدرسوين كي وحي ما أرتاح utility bill ده ما هيستان marka waxa loo baahan yahay dawladdan u baaqayna inay macnaha madrasooyinka gacan siiyaan. dhanka kale maarayaha wasaaradda deegaanka ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay madrasooyinka garab taagan yihiin isla markaana dadka kale waxa uu ugu baaqay in ay iyakuna garab istaagaan. xaqiiqatan maaragtay waa arrin maaragtay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa insha Allah taala. waa meel maaragtay ardayda iyo maaragtay ilmaheena yaryar maaragtay meel maaragtay lagu soo diyaarinayo oo maaragtay laga doonayo maaragtay ummadda inay wax u qabtaan ayakana wax isku qabtaan ummadana ay anfacaan arrin la doonayo oo muhiim ah. waana soo dhaweynaynaa insha Allah taala. wixii annakana maaragtay Garissa County ahaan maaragtay wixii maaragtay oo ay nooga baahan yihiin hiil iyo hooba maaragtay diyaar baan u insha Allah taala. gabagabadiina maamulaha madrasadan oo aan wax ka weydiinay xaaladda waxbarasho ee xaruntan ayaa shaaciyay waxyaabaha ugu dhibka badan ee ka jira madrasadan. xasan budul cabdisamed mudiirka madrasada Macaad Binu Jabal mu'asaskeedina ah halkan waxaan ka soconay waxaan ka wadnay dacwadan oo diinta iyo daraasada iyo maaragtay horwadkeeda ah waxaan maanta aan ku faraxsanahay inaan xirnay oo sanad dugsiyeedkii soo socday daraasadii 12 bilood soo socotay inaan maanta gabagabeynay annaki iyo marti sharafka noo imaaday dhammaan culimada diinka madaxdii dhammaan waxaan leenahay mahadsanidin. waxaan doonaynaa inaan daraasaadkii iyo maaragtay tacliintii aan sii xoojino haddii idaaradii iyo macallimiintiba aan nahay waxaan qof kasta oo muslim ah walaalkaana aan ugu baaqaynaa inuu meeshaas markaskaas Macaad Binu Jabal inuu gacan ka geysto dacwadaas iyo diintaas lagu baranayo. taasna waa fariinaan u gudbinayo walaalahayga muslimiinta ah inta ii jeeda ay aragtay iyo inta ay maqli doontaba. Jazakumullahu khairan. The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day.